soo dhawaada dawadayaal halkan waa page-kiga Firdawso Maxamuud Sahal waa mar kale iyo muuqaal cusub muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay walaalmayow muddadii uu xafiiska joogay saameyn muuqata ayuu ku lahaa marka la eego sida uu u kasbaday inta badan bulshada reer Koonfur Galbeed balse mar qura ayuu ku dhawaaqay iscasilaad degdeg dad badan waxa ay isweydiiyeen ma waxa uu soo go'ay inuu noqdo TikToker qofkan ka hadlaya waa Ilyas Cali Nuur oo waayahan dambe loo yaqaan walaalmayow Ilyas Cali Nuur waxa ay dadku si weyn ugu barteen isagoo ahaa daaci ku caan baxay fidinta diinta Islaamka iyo gudbinta sunnada nabigeena suuban naxariis nabadgelyo ee boqorkiisa ha yeelay isagoo waliba ka gaaray mid ka mid ah darajooyinka ugu sareeya oo ah dadka inuu baro Quraanka Kariimka waxa uu ka qayb qaatay barnaamijyo iyo muxaadarooyin diini ah kuwaas oo qaarkood ka baxay muuqbaahyaal caalami ah waa xaafidul Qur'aan cod macaan marka uu akhrinayo Quraanka Kariimka oo ay codkiisa la ashqaraareen kumanaan mucaashaqiin ah Quraanka Kariimka waxa uu ku bartay magaalada Muqdisho isagoona macallin ka noqday isla magaalada Muqdisho isagoo madrasadiisa ay ka aflaxeen boqolaal arday mar uu wareysi bixinayay waxa uu sheegay waxaan horay u ahaa macallin dugsi gaar ahaan magaalada Muqdisho si fiican ayaan Quraanka Kariimka u bartay waxaana macallin dugsi ka noqday degmada Hodan Ilyas ayaa isagoo sii hadlaya waxa uu yiri ma ahayn macallin dugsi Qur'aan balse sidoo kale waxaan mar ahaa imaam masaajid oo boqolaal jamaaca ah ay salaada ku xirtaan sidoo kale waxa uu sheegay in salaada taraawiixda xilliyada Ramadaanka uu ka tujin jiray masaajidka Musabaqor Ilyas mar qura muuqiisa iyo magaciisa waxa uu si weyn u qabsaday baraha bulshada kadib markii uu wacday dhanka madadaalada iyo siyaasadda waxaana la arkay isagoo iska soo duubaya muuqaal gaagaaban oo lagu laray muusig bilooyin ka hor ayuuna ku biiray barta TikTok halkaasi oo uu soo dhigi jiray muuqaalada muusiga lagu laray dadka ayaa isweydiinaya sababta ku kaliftay in uu ku biiro barta TikTok su'aalahaas isagoo ka jawaabaya waxa uu yiri baraha bulshada marba dhinac ayaa loo guuraa waxaan arkay in dhalinyaradii ay u guureen dhinaca TikTok sidaa darteed aniguna waxaan jeclaystay in aan dhalinyarada soo jiito dhalinyarada Facebook ayaan ka waayay waxaan ogaaday in ay TikTok u guureen kadib anigana halkaas ayaan uga daba guuray hadalkan kale waxa sidaas u sheegay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo kamid ah isaguna siyaasiyiinta ugu caansan barta TikTok Ilyas isagoo sii hadlaya waxa uu yiri hadii aan nahay Soomaali malihin aragti dheer waxaan nahay dad aad u aragti gaaban muusiga hadii la yiraahdo maanta 99% waa ay dhageystaan meel walba oo aad martana waxaad ka maqlaysaa muusig marka muusigu dad badan oo dhalinyarada kamid ah ayaa isticmaala anigana aragtidayda waa ay ka duwan tahay waxaan fiiriyaa dhalinyarada waxa maanta lagu mashquulin karo ayuu raaciyay waa uu sii hadlay markii aan dalka dib ugu soo laabtay oo aan arkay in dhalinyarada dhibaatooyin badan oo ay kamid yihiin qabyaaladda iyo xagjirnimada ay aad ugu sii faafayaan dhalinyaraduna ay yihiin kuwa u jilicsan ayaan ogaaday in taasi si looga hortago dhalinyaradu ay jecel yihiin waxyaabaha muusiga lagu daro marka aniga waxaan fiirinayaa waxyaabaha dhalinyaradu ay jecel yihiin oo lagu kasban karo si looga hortago inay ku biiraan ururada argagixisada ayuu raaciyay hadalkiisa Ilyas Cali Nuur oo 2021 loo magacaabay wasiirka wasaaradda warfaafinta Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa xilkaasi mar qura iska casilay dooda ugu badan ayaa ah waayihiisii wanaagsanaa ee Ilyas laga soo bilaabo xaafidul Qur'aan macallin dugsi imaam masaajid ilaa wasiirka warfaafinta Koonfur Galbeed ugu dambeyntiina TikTok haysto 122,000 oo followers